السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان خيارتا ku xidhan kanaalkayga barashada shaybaadhka soo dhawaada waxay noo soo dhacay casharaanteena imtixaanaha urine analysis-ka inagoo soo qaadanay labadii qaybood ee hore ee ahaa chemical examination-ka iyo physical examination-ka hadda waxaynu qaadanaynaa casharkii ugu dambeeyay urine analysis-ka oo ah microscopic examination insha Allah casharka koowaad ee microscopic examination-ka ka qaadanayna maanta waxa weeye epithelial cells-ka waxyaabahan isweydiinayna waxaa ka mid ah epithelial cells waa maxay imisa ayaa loo qaybiyaa normal epithelial cells looga baahan yahay urine-ta waa meeqo maxaa kor u qaada in epithelial cells ku bataan oo ay qofka ay ku bataan maxaa se hoos loogu dhigaa inta badan shantaa qodob ayaynu isweydiin doonaa haddii alla awoodda la ogolaado marka ugu horreyn epithelial cells ayaynu isweydiinaynaa epithelial cells waxaa la yidhahdaa waa cells kuwaasoo ka yimi ama ka yimaada maxay tolay urinary tract intan kaadi mareenka ama laga soo bilaabo kidney oo kalidiya ureteraha oo kaadaysa iyo urinary tract oo ah intan tuumbooyinkan kaadida qaada saddexdaas ayuun bay u dhaxaysaa marka epithelial cellsku waa cells ka yimaaday saddexdaas mid ahaan bay ka soo googeen waa qaybaha hoose ama dhuumaha ama kalida qaybaheeda hoose ee nephroniska ama qaybta bladderka gidaarada bladderka xuub yar ka soo go'ay ayaa loo yaqaanaa epithelial cells qodobka labaad ee isweydiina waxa weeye epithelial cells imsa loo qaybiyaa epithelial cellsku iyada oo lagu salaynayo meesha ay ka soo go'een ama xagga ay ka yimaadeen waxa loo qaybiyaa saddex qaybood oo loo yaqaano squamous epithelial cells oo badanka isagu ka soo go'ay ureteraha oo kaadihaysan dhow ka yimi transitional epithelial cells oo isagu ureteraha iyo bladderka labadaaba isagu ka imaanaya iyo renal tubular epithelial cells waxa la yiraahdo renal tubular epithelial cells isaguna wuxuu ka soo go'ayaa waa kaliyaha ama renalka qaybaha hoose ee nephroniska ee renalka ayuu ka soo go'aya haddaba haddii aynu mid u dul istaagno ka ugu badan the most common type of found in urine typically shed outer ureteraha ama kan ugu badan ee laga helo urine-ta normal ahaan hadday noqoto iyo haddii ay noqoto xanuun ahaanba ugu badana waxa weeye squamous epithelial cells squamous epithelial cells waxaynu nidhi waa cells ka soo googo'ay ureteraha ama bladderka intan waliba bladderka kaadihaysta ayay ka yimaadaan oo waa cells yaryaro hoose oo ka soo go'aya haddaba transitionalka iyaguna waxa weeye waa cells ka soo go'a bladderka ureteraha ilaa iyo maxaan ku rahday qaybo ka mid ah kelida iyada qudheedu way ka timaadaa tan kale ee ah renal tubular epithelial cellsku iyaguna toos kelida ayay uga timaadaa kaasoo haddii ay kaadidii ku badato oo kale sheegaya in dhaawac kelidii uu jiro marka inagu laab ahaan markay nahay waxaa muhiim ah inaynu saddexdii kala aqoonsano oo markaynu epithelial cells aynu urine-ta ku aragno waa inaynu odhan karnaa waa noocee epithelial squamous ba ma transitional ba mise waa renal marka haddii tusaalehaan ay transitional noqoto inay saddex mid u noqonayso badanka transitionalku kidneyda inkastoo yar tahay way ka yimaadaan boqolkiiba 45 waxay ka yimaadaan bladderka ilaa boqolkiiba 45 uretera ayay ka yimaadaan marka inagu laab ahaan markaynu nahay inaynu kala morphology ahaantooda aynu kala aqoonsano weliba iyagoo qayb oo qayb kasta gaara sawirkeeda ayaan insha Allah inoo soo gelin doonaa marka haddiinu epithelial cells-ka qeexidiisa iyo inta loo qaybiyo iyo qayb walba qaybta ka soo goda aynu intaa ku dhaafno normal ahaan intee ayaa lagu ogaan karaa ureteraha waxaan jeedaa intee epithelial cells ayaa laga ogol yahay in urine-ta normal ahaan ay ugu jirto badanka inta ugu badan urine-ta laba un baa lagu arki karaa waa squamous-ka iyo transitionalka weliba number yar haddii lagu arko urine-ta oo 2 ilaa 5 u dhaxeeya oo labadaa qaybooda
xaalad normal ayaa loo tixgelinayaa oo waxa loo consider gareeyaa inay badan ay tahay xaalad caadi oo normal ah. marka 2 ilaa 5 haddii qofku urine ku arko xaalad iska caadi ah weeye, laakiin wixii intaa ka badan haddii uu ku arko oo kale hadba iyadoo xaaladda la eegayo iyo sida numberka uu yahay ayaa lagu qiimeynayaa. kule qaybahan hadda dhakhtarada iyo waxaas la baahaysan, laakiin inaga muhiimad ahaan morphology-ga iyo waxaan xagga ka yimaadeen baa inoo muhiim. waxa kale oo jira qodobka afraad ee isweydiinayna waxa weeye waxyaabaha kor u qaada amaba in uretary ama kalidii ama bladderki intaba ay ka yimaadaan qaybahoodii seliska ay soo go'aan maxaa keenaya. number 1 waxa ka mid ah waxa loo yaqaan urinary tract infection. urinary tract infection inay ay dhacdo waliba xilliga urinary tract infection-ka transitional epithelial cells-ka ayaa aad u kaca. waxa ka mid ah kidney stones-ka. kidney stones-ku waxay saameynayaan gidaaradii kaada haysta, taasoo keenaysa in ay soo go'aan ama irritating markuu ku dhaco gidaarkii uu damage garoobo lining-kii ama urinary tract-gii inay xubab ka soo go'aan oo selisa. waxa kaloo jira kidney damage or disease. haddii kalidii uu ku dhaco infection oo kale ama xaalad kale oo caafimaad ay ku timaado, iyaduna waxaa dhacdaa in tusaale ahaan ay bataan epithelial cells-ki iyo ay farabataan. waxa kaloo ka mid ah waxa loo yaqaano contamination-ka oo waxaa la yidhaahdaa badanka siiba tusaalehaan carruurta yaryar oo kale xilliga yaryar yihiin waxaa jira xafaayad baa lagu xidhayaa, ilmuhu isku saxaroonayaa, markii isku saxaroodo xubnihii taranka oo kale iyo ayay gaadhaysaa saxaradii oo kale. marka haddii xubnihii ay wasakhoobaan oo ay maxay ahayd toole ay gasho maxay toole wax wasakho contaminated iyadana meesha infection iyo xanuun baa ka imanaya. marka contamination-kuna isaguna qayb muhiim ah buu ka yahay. marka xilliga ay carruurtu yaryar oo kale in waves la isticmaalo oo kale xafaayaddan ilmaha lagu raajin oo kale caafimaadkiisa ayay ka qayb qaadanaysaa. waxa muhiim ah iyana ugu dambeeya sidee baynu reduce gareyn karnaa ama tusaale ahaan qof baa lagu arkay calaamadahan oo dhan buu muujistay. horta ugu horreyn inagu maadaama in laabnahay dee hawsheena maaha, waa inuu qofku dhakhtar la xidhiidho oo dhakhtar hawshaas uu sameeyo. laakiin inaga dee tala ahaan iyo maxay ahayd toole waxyaabaha ugu muhiimsan ee qofka hoos loogu dhigo waxaa ka mid tusaale inuu qofku biyo badan oo kale isticmaalo, inuu dhakhtar u tago oo kale haddii xaaladiisu khatar tahay oo kale la sameeyo baaritaan urine analysis loogu sameeyo, kadibna hadhow dowlad dhakhtarka dawooyin iyo howlo kale uu qoro. sidoo kale waxaa ka mid ah in qofku nadaafadiisa iyo waxyaabahaas uu kor u qaado. waxaa kaloo ka mid ah iyana inaga markay laab tahay qodobina saameynayo ah marka aad urine soo qaadayso, tusaale ahaan urinada oo kale early morning oo kale la qaado waxa lagu inta yara hore ee kaadida daadi inta ku xigta deetana qaad weelkaad ku qaadaysa nadiif ahaado. maxay toolay marka haddii kale mararka qaar waxa saameynba ku yeesha qofka waxyaabo dibadda kaga yimid oo aan maxay toolay ahaynin xaalad caafimaad oo qofkaaba. marka epithelial cells qaybuhu kala baxay qayb walba halkay ka imanaysay inta normal ahaan looga baahan yahay qofka in jirkiisa laga helo waxyaabaha kor u qaada iyo waxyaabaha hoos loogu dhigo intaba intaas ayaynu kusoo gabagabaynaynaa haddii Allah awoodda la ogolaado. aad ayaad ugu mahadsantihiin si aad noo dhiirigelisaan. kanaalkanu meel fiican buu maraya insha Allah, annaguna waan dadaalaynaa casharo tayo leh insha Allah waan noo soo gelin doonaa haddii Allah awoodda la ogolaado. casharka xigeentaan ku kulmi doona waxaan idin leenahay ka faa'iidaysi wanaagsan. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.